الله الرحمن الرحيم ورمستيك شركة دبوشيسين سياسات كان بلشيد كونفور قلب الصوماليا أفرتا بشلوات لابدكم لواتني سدح بيضاو شركة وتشركة دبوشيسين سياسات كان بلشيد دولات كونفور قلب الصوماليا وقوم باقي بدومها دورها الشعب كبرلمان الفدرال كصوماليا مدن الشيخ آدم محمد نور شيخ آدم المدوبي تاريخ مركز هي سجاد تمنكي بشي نوفمبر نبض كل لوي لواتنكا سلم من أحسن أسعار كلا وصول ويين مدحوينها دول جولات كونفور قلبات لواتنكا نوفمبر نبض كل لوي لواتنكا إيوه سياسيين تقوم بدوبي دلالها كلا بدوب المشرحين تا مدش السنة الدحين تا هي جورها بالبلاد كونفور قلبات صوماليا كدي gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa soo magacaabay isagoo la tashtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud guddi farsamo oo ka kooban 7 xubnood oo ah guddiga farsamada ee arrimaha dib u heshiisiinta koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u furay shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed Soomaaliya taariikhda markay ahayd 17 Janaayo 2023 shirkaas oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen iyo siyaasiyiinta ku midoobay daladaha midowga musharaxiinta madasha samad bixinta koonfur galbeed Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kala duwan ee labada heer ee federaalka odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta markuu arkay qodobka 61 farqada labaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo qodobka 142 farqada labaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah markuu arkay qodobka afaraad ee warmurtiyeedka shirka dib u heshiisiinta ka qabsoomay magaalada Baydhabo 17 December 2022 oo tilmaamayo in gudoomiyaha golaha shacabka uu soo magacaabo guddiga farsamada markuu arkay qodobka saddexaad farqada shanaad ee dastuurka goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay qodobka 37 farqada koowaad go'aanka golaha wakiilada koonfur galbeed Soomaaliya in ay tahay hay'adda ugu sareysa ee sharci dejinta dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu dhageystay tala soo jeedinta odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya oo ah marjaca marka ay la soo gudboonaato xaalad golayaasha dowladda si waafaqsan qodobka 6aad xarafka C ee dastuurka koonfur galbeed Soomaaliya xukuumadda koonfur galbeed Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ku midoobay daladaha midowga musharaxiinta madasha samad bixinta koonfur galbeed Soomaaliya iyo bulshada rayidka ah markuu arkay dhammaan nuqulada ay soo wada gudbiyeen golaha wakiilada nuqulka koowaad ee soo baxay 18 Abriil 2020 iyo nuqulka labaad tixraaciisu uu yahay gawa dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya April 9 2020 kuna taariikhaysan 20 Abriil 2020 oo labaduba ku saabsan wax ka beddelka dastuurka koonfur galbeed Soomaaliya qodobka 50aad kaasoo lagu daray farqa saddexaad marka uu tixgeliyay nuqulka go'aan ay soo gudbiyeen oo ay xukuumadda dowladda koonfur galbeed Soomaaliya shirka dib u heshiisiinta kuna taariikhaysan 1 Febraayo 2023 iyo kan daladaha ku midoobay midowga musharaxiinta iyo madasha samad bixinta koonfur galbeed Soomaaliya oo isna ku taariikhaysan 2 Febraayo 2023 markuu arkay ismaandhaafka siyaasadeed ee ka jiro koonfur galbeed Soomaaliya oo caqabad ku yahay dhammaan horumarinada lagu sameyn lahaa la dagaalanka kooxda khawaarijta Al-Shabaab iyo horumarinta koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu gudoomiyay gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta ahna gudoomiyaha golaha shacabka si waafaqsan qodobka 61 farqada labaad dastuurka ku-meelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo qodobka
boqol afartan iyo labaad farqada labaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah sidoo kalena isaga oo tixgelinayo qodobka 37 farqada koowaad ee dastuurka koonfur galbeed qodobka koowaad gudoomiyaha golaha shacabka marka uu xaqiijiyey arrimaha siyaasadeed iyo midda bulsheed ee dooda ka taagneed wadatashi dheer kadib waxaa la go-aamiyey in ay odayaasha dhaqanka beelaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ay soo xulaan muddada u dhexaysa bisha November 2023 ilaa bisha December 2023 xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya iyaga oo la tashanaya beelahooda si waafaqsan qodobka 37 farqada 3 ee dastuurka koonfur galbeed in doorashada guddoonka golaha wakiilada dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya la qabto inta lagu guda jiro bisha Janaayo 2024 qodobka labaad dhammaan gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed siyaasiyiinta ku midoobay daladaha midowda musharaxiinta iyo madasha sanad bixinta koonfur galbeed Soomaaliya waxa ay isku raaceen in wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ay dhaqan geliso heshiiska qodobada kor ku xusan wabillahi tawfiiq waxaa sharaf ah inaan kusoo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان الشعب الصومالي مركز الكليين وحان سوق السنة باقي أما ممكن كسب حي شركة مجردة بش يجرد كسعودي من هذا بيدبا وأنا من على وجه وما كان حتى أنجو يوم بيسان صوبه عربا إن آدي ما عليو dadka reer koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan dadka magaalada baydhabo degan oo muujiyey si xilkasnimo ah muujiyey dulqaad aada iyo aada u badan muujiyey maxaanku idhahdayy in ay u hiilinayaan wax walbana ay u hurayaan nabadda iyo deganaanshiyaha deegaanka iyo dowladnimada waxaan sidoo kale aan aada iyo aada ayadana aan ugu mahad celinayaa dalladaha la sheegay hadda halkan laga jeediyey ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ahaa oo ayagana intii tanaasul la suubiyey intii ugu badnay ayaguna dhinacooda ka sameeyey oo runtii muxuu ahaa dul qaatay aqbalay in hore loo socdo wixii shalayna laga daawoobo waxaan sidoo kale iyadana aan u mahad celinayaa maamulka oo hogaaminaya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo xukuumaddiisa oo ayaguna muujiyeen isbedello waaweyn oo u danaynayo dadkan in deegaankan laga sameeyo tanasulaadna laga muujiyo waxaan rabaa sidoo kale si gaar ah inaan u mahad celiyo odayaasha dhaqanka maxaanku idhahday beelaha ku abtirsada koonfur galbeed oo ayaguna aan ka daalin ka caajisin wixii dhacayna in la dhayo la booga dhayo la daaweeyo dadkii walaalaha ahay ee dhibaatadu ay kala gaartay wixii u baahan in la xalliyo la cawal celiyana soo dhexgalay dadkii dejiyey intii dhaawacayd la daaweeyey intii maxaanku idhahday wax tirsanaysana qof walba gacanta madaxa laga saaray raalli ah uga yiri dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay diyaar u tahay ayaduna dhinaceeda ay ka ballan qaaday in wixii kaalin ay uga aadan arrimaha dib u heshiisiinta arrimaha isu soo dhaweynta dadka iyo qalbi xaarista iyo arrimaha wixii lagu ballamay sida loogu ballamay inay u dhaqan galaan hubinteeda iyo xaqiijinteeda intaas ayaa dowladda federaalka ay ballan qaaday waxaan rabaa dadka koonfur galbeed hadday yihiin maamul hadday yihiin mucaarad hadday yihiin odayaal dhaqan hadday yihiin shacab intaba runtii bisayl siyaasadeed iyo dulqaad iyo tanasul aada iyo aada u ballaaran ayay muujiyeen dhibaata hadday dhacdo in la xalliyo dhibaatadii dhacday
iyo in laga ballamo berri dhibaatadaas oo kale inaanay soo noqon waaye waxa tallaabooyinka la qaadaa waana laga ballamay dowladda federaalka ah na waxay mas-uuliyadda qaadatay wixii lagu ballamay xaqiijintooda inay joogto oo ay hubiso qofkii wixii lagu ballamay ka leexanayana inay gacanta ka qabato oo ay dhahdo wixii lagu ballamay sidaan ma ahayn ay joog nabadaan timida awgeed waxaan aaminsannahay wax badan oo horumar ah iyo muxuu ahay booqdayad badan iyo qandaxaadid badan iyo isu soo noqosho badan inay dhici doonto haddii alla yidhaahdo in la ilaaliyo nabadda in la ilaaliyo kalsoonida in la ilaaliyo qalbiga dadka in la ilaaliyo waayo dardaaranka guud aan ku dardaarmayno aad iyo aad ayaa ididirada ugu fiican tahay waxaa kaloo aan rabaa iyadana aad iyo aad ugu faraxsanaya rabaan inaan ka mahad celiyo dadka koonfur galbeed sida ay uga go-an tahay in khawaarijta lala dagaalamo sida ay uga go-an tahay in maxaan ku ihahdaa deegaanada dalka soomaaliya oo dhanna la xoreeyo si gaarana deegaanka weliba ay xoog iyo caqli wixii ay hayaan oo dhan ay isugu geeyaan si aan loo xoroobo arrintaas arrin ididiira leh bilowgii maxaan ku ihahdaa dib u xoreynta deegaanada ah waaye waa ku hambalyaynaynaa waa ku bogaadinaynaa ayaga iyo dowladda federaalka oo isla socdana oo iskaashanayana muxuu ahay deegaankaani ilaahay idinkiis mardhow khawaarijta waa laga weyn doonaa haddii alla yihahdo mar kale hambalyo guud ahaan dadka koonfur galbeed oo nooc walbala iyo martabo kasta leh waan u hambalyaynaynaa waana bogaadinaynaa walaaltinimada ay muujiyaan aad iyo aad aad umahadsantihiin wasalaamu calaykum